waxaan ku yiri ilaahay ha guuleeyo ilaahay garabkooda ha galo intii dhibaatana Allah ha u naxariisto hiiliyaha baan la garab taaganay gacmaha isqabsada walaalahay oo midaysan tawxiidka laa ilaaha illa allah maxamed rasuulullah ayaanu isugu nimid ilaahay noo barakeeyo ciidankayga qalabka sidana allah raxmaanki guul baanu leenahay hooyooyinka Soomaaliland waxaan u sheegayaa xooga iyo cududda iyo ciidanka inay la garab istaagaan oo hiiliyo hooba la garab istaago oo la calaalin oo la ooyin waa midnimo Soomaaliland dhiiga rag waxay u shubeen waa qarannimadii Soomaaliland qaran bayna Soomaaliland ila bari mangalbeed waxaanu ku soo baxnay qiirooyo annagoo reer ahayn annagoo qoys ahayn annagoo qof ka hadlaynin annagoo mucaarad iyo min xaafidba ku hadlayna mid buurgalay mid banaan joogaba waar markaa isku duumeedeen lama soo galay jaanis baa idinka helay bartaasaan idinku ognay waan idin daba soconaa ku socda waan idin daba soconaa uga salaamaya ciidankayga qaranka ay qalabka sida guul iyo guurdaraba aad baan u garab taaganahay maanta mid aanu haano ayaanu leenahay muxaafid iyo mucaaridba waxaanu leenahay mid aanu meel uga soo wala jeedsano halkan waxaan ka leeyahay ciidankayga inaad isogaataan oo mid ahaataan awalba mid baad haydan ciidanka imikana inaad mid ahaataan baan doonayaa maanta halkan waxay keenay waa qiirada ciidankayga maanta waxaan ku qaranka waxaan doonayaa ciidankaygu inuu hal mid ahaado sida annagu aan midnimada ugu noolnahay idinkana midnimada rajaynayna ciidanka qaranka waan garab taaganahay hiiliya hoobay kama hadayno waan idin garab taaganahay insha Allah biidnillaahi kariim intayna noolna guntiga dhiisha iskaga dhiga insha Allah waxaanu idin leenahay oo aanu maanta isugu soo baxnay dhiirigelinta dhalinta qaranka iyo maxaan dhadaya ciidamada qaranka annagoo dhiirigelinayna oo ku dadaalayna midnimadooda idinkana waxaanu idinka doonaynaa dadka reer Soomaaliland ama shicib noqo ama ciidan noqo ama dawladu shaqe inaad maanta midowdaan oo u midowdaan wanaaga iyo midnimada iyo difaaca qarankeena iyo calankeena aynu difaacno oo aynu inamadeenna isgarab taagno inta dhibatay Allah u naxariistaan leenahay waar inta noolow midooba inta dhimatay Allah u naxariisto waligeeda la dhimanayay oo gacmaha isqabsada oo mid noqda oo dhalinteena banaanka joogta maanta garab istaag waxaan ku leeyahay waxaan idin leeyahay anigoo ah samsam anigoo ah waxaan idin leeyahay ciidanka qaranka reer Soomaaliland waxaan idin leeyahay xaafadda Sheekh Mubaarak gaar ahaan Maqruub waxaanu idin leenahay dhammaan hooyooyinka dhalinyarada halkan soo taagtay waxaan maatada waxaan u soo barabaxnay ciidanka qaranka dartii waxaan idin leenahay walaal ul iyo dir wada noqda idinkamay guulaysan tan waad ka guulaysan doontaan sida horeba caanka ugu haydan imagana guul iyo gobonimo leeyahay guul iyo gobonimo garabkiinaanu taaganahay insha Allah naf iyo maalba waan idin huraynaa naf iyo maalba waa loo hurayaa ciidanka cadawgiisana Allah jabiyo Soomaaliland guul waxaanu leenahay haniyad jabina meel kastoona joognaba hiiliyaha waan idin garab taaganahay waxa Allah waxaan idin kala hadhaynaa ma jirto cudud iyo xoog iyo af iyo adin haniyad jabina maantana ciidankeeni way buuxaan meel walba kasta bari iyo galbeed waa la seekeeyaa niyadana ayna ugu sheekayn Soomaaliland shalay bay jabtay maalinta badib madaxa uma soo qaadayso mar walba kasta dhiiga nagu tira rag iyo dumar waanu taaganahay dareenkaygana waa la garab taaganahay xoolayo xoogtana kaga harimayno laasaanadna kulli dimayaan gooja cadana kulli dimayaan maraagana kulli dimayaan waanu garab taaganahay ha ogaadaan gacan dambe inay ka dambayso laga dabaymanayo waxaan ciidamo waan idin garab taaganahay Soomaaliland guulaysato markasta iyo markastaba agtiina ayaan joognaa waxaan leenahay guul Soomaaliland garabkiina ayaan taaganahay mid kale waxaan leeyahay madaxweynaha Soomaaliland ciidanka aynu faraha ka qaado sii daayo anaguna waanu garab taaganahay musafiina waxaan leenahay ciidanka gacanta u sida muuse ciidanka gacanta anaga ka horeeyna iska celinayna way noo garowe
ciidanka Soomaaliland haniyad jabina hiil iyo hoob anaga in la garab taagan maanta waxaan leeyahay ciidanka Soomaaliland haniyad jabina waxaan leeyahay guuleysta meel kastoo joogaan guul baan idin rajaynayaa caafimaad iyo cibreer baan idin rajaynayaa arooshin aad ka haysta waxaan ku waxba idinka ma dhibanin wali hanbana ma yidin ciidanka xoogiisa oo haysataan idinkooda la ascaanood calankeeni ka tagan arki doona ilaa ciidankiisa garawaana ka tagan calankeeni arki doona waxa la ciidanka guuleysta ilaahay ciidankiisa waan isoo ducana ciidankaygu ha guuleysto guul baan u rajaynayaa hala socdo guul iyo gabadhnimo aan rajaynayaa guul iyo gabadhnimo hal la israaco gacantii midigta la isqabsado hal kaco waa inaad gacmaha haysataan qabyaaladii waxa waa inaad joojisaan waa inaad dhinaciina ka adkaysaan oo xooga ka muujisaan garowe haddaanan luku gaadhin sheekadaydu ma hirgelin baan ku yidhi madaxweynahana waxaan leeyahay ciidanka sii daabti sii daa salaamay ciidamada qaranka marka hore guuleysta maan leeyahay waligina ninka guuleysta ninka gacan sareynaya insha Allah markasta ninka guuleysan markastana gacantiina way sareyn doontaa inta yarna de weligood barta roobka xagaagu markuu daamaad aragtay ku yar qaada marna uu maxaa kale uu soo yaradaata idinku awalba dabeel xagaa baad haydana naf midana soo yactay marna sii yaaci jirteen ragjood soo jeedan iska meedaan celin ee waxaad ku soo yaacdeen nama yaro hurdaad soo gaadeen laakiin waa la iskaga dambeyn doonaa libin la iskaga dambeeyna libin maaha waxaan leenahay haddii ay nabadda ka fursan weydo siduu madaxweynaheenu yidhi in la difaaco oo loo guntado oo jiida hore la galo annaguna aad baan u taageersanaa Allahu akbar Soomaaliland ha guuleysato Soomaaliland ha guuleysato adagooga ha jabo ha jabto waa guuleysanay huwa tani ma aymayno huwana aymayno gayrina laba waan laqaana annagu haddaanu nahay suuqii gobonimo dumarsatadii qanacsatada duca ayaan ku taageeranaa ciidankayaga waxaan ku leenahay Muuse iyo taliyaha ciidanka bilayska ciidanka fasaxa guul iyo gobonimo ka keenan oo magaalada calanka Soomaaliland ka babanayo inaanu aragno inta maanta naga dhimatayna waan u tacsiyadaynaa qoysaskii ay ka baxeen iyo walaalahayo ilaahay qabrigana ha wada waasiciyo inta noolna waxaanu leenahay gaadha bartay Soomaaliland lahayd hanu gamaanay gaadha ciidankana faraa laga qaado sii daaya ciidanka meel ay joogaana ciidanku wuxuu ku qurux badan yahay inuu isku duubnaado oo midhahaadaan cadowba dhex taagantiidin yaan layni kala jabinin yaan araxda layniga jabinin ciidankayga waxaan leeyahay guuleysta guul iyo gobonimo bina waa wada taagantiin intaas waa midharkana waynu ka soo kabanaynaa raggeenu way wada taagan yihiin rag iyo dumarna midh baynu nahay qabiil iyo qabyaaladi ma jirto inagu Soomaaliland waa midh waxaan idin leeyahay guul iyo gobonimo ku dhinta annagoo dumara haddaanu nafaqanahayna waanu idin daba soconnaa midigtaynu is wada qabsanaynaa insha Allah biidmillaah halkan waxaan ka salaamayaa ciidankayaga qaranka waxaan leeyahay guul iyo gobonimo insha Allah guuleysta ku guuleysta noqda kanaga dhintayna xaq u dhintay oo garb u dhintay oo waanu ku madiidanin dhimashada oo waanu ku faraxsanay oo madiidana waanu ugu talagalay inay dhintaan iyo inay noolaadaan inay wax iska celiyaan intaba waanu ugu talagalay ciidamada qaranka waxaan ku yiri cadawga ku soo duulay cadawgaasi waa cadow aan la dagaalamayno rag iyo dumar diyaar baan u nahay Saad Axmed Caydiid warbaahinta dawladda Hargeysa